Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, ciid mubaarak. Ilaahay naga aqbalo soonkii, salaadii iyo qiyaamkii aynu la taagnayn bishii Ramadaan. Ilaahay bisheedana hayna gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna oo dhammaan riyooyinkeenii iyo hamigeenii inoo rumoobeen. Intaa marka laga yimaado inkastaan googooyin badanahay oo mashquulna soo galay, waadna iska ogtiin waa Ramadaan, laakiin marnaba idinma ilaawin. Maanta waxaan inoo wadaa qiso. Qisadani beri dhoweed waxay ka dhacday wadankaasi Bakistaan. Waxaa jirtay gabadh Bakistaaniyada oo jeclayd wiil in adeerkeed ruma wiil u dhalay ayay jeclayd oo guri ay iskula noolaayeen. Aad ayay wiilkan u jeclayd, laakiin wiilkan isagu ma jeclayn. Waxaa dhacday waa jecel aduu hal dhinaca in markii dambe gabadhii aabaheed siiyo in adeerkeed kii jeclayd maaha, waa mid kale. Aad ayay gabadhani u nacday in adeerkeedan, mana rabin inay guursato. Kii kalena isagu jacaylba uma hayo ee wuxuu doonayay khaliya, walaalnimo unbuu arkayay. Kan ayaa la siiyey. Gabadhii waxay isfahmi waayeen wiilkii iyo hooyadii. Guri buu dejiyey, sida Hindida iyo Bakistaaniyiintu badanaa way isku soo dhaqan dhow yihiin. Inkastoo Bakistaaniyiintu dad muslimiin ay yihiin, misana waa dad aad isku soo dhaqan dhow. Guriga waxaa la dejiyey sodohodeed, halkaasi reerka oo dhani ku noolaayeen, faamiliga oo dhani. Waxaa dhacday in ay gabadhii islaantii iyo wiilkii nacdo, si walba ay iskugu daydo inay uga fogaato. Maalinkii dambe ayaa waxaa kusoo dhacday fikrad maskaxdeeda. Fikradaynu odhan karno waxa weeye fikradii ugu xumayd ee qof bini'aadana ku fakaro, inay ninkan disho. Waxaa dhacday in ay soo qaadatay caano. Caanihiiba waxay ku dartay sunta jiirka, waa ku walaaqday. Weliba waxay ku dartay caanaha koobkii oo dhan ilaa 2 xabo. Xitaa haddii qofku sa u kabado naftu ka haadayso. Ninkii ka yimi shaqadii ayay ku tiri xaaji caanaha isku qaboojiyo. Wuxuu yidhi ma rabo maanta, igama hayso, aad baan u daalanahay, wax caana la yidhaahdo igama hayso, waad mahadsan tahay, ma rabo. Waxay tiri xitaa kabo may buu yidhi, xitaa ma kabanayo, ma rabo maanta caano. Waxaa dhacday in ay aad u cadhootay, iska dhigtay, caanii bay talaagadii gelisay. Waxay tiri marka kolley mar u baahan doona caana markaasi. Waxaa dhacday in islaantii sodohodeed ayaa waxay casuntay ilaa dhowr iyo 20 qof, dhowr iyo 20 qof ayay casuntay oo asxaabteeda ka mida oo faamiliga ka mida. Islaantii waxay damacday inay sharaab u qooshto. Sharaabkii u qooshaysaana waa cocktail. Cocktailkii markay qotradii alaabtii oo dhan isku dhammaysay baa waxaa ka dhinmay caano. Waxayba aragtay caanahan koobka ku jira ee qaboobay ee aadka loo rasiimiyey ee ku jira talaagada. Caanihii bay soo qaaday, waxay ugu dartay cocktailkii dadkii. Xitaa wiilkii waa ku jiraayo ogow. Wiilkii ee dhashay xaflad yar bay iska samaysatayoo dadkii baa cocktailkii cabbay. Dhowr iyo 20 qof ee ninkeedu xitaa ku jiray waa dhinteen. Askartii baaritaan bay galeen. Iyadu aad buu u cadhaysnayd oo islaantan iyo maba arki karto, oo markii islaantii tiri dad baan casumayaa bay qol xidhatay. Dhakhaatiirtii waa baaritaan galay. Waxaa la ogaaday in suntii jiirka dadkana ku dhinteen. Guriga qofka keliya ka nool waa gabadhan. Gabadhii waraysi badan lala yeeshay. Markii hore waa dafirtay ilaa ay ugu dambeyntii tiri guul ayaan joogaa haddii uuba ninkayga dhintay, waayo aniga hamigaygu wuxuu ahaa in aan isaga dilo. Waxaa la yidhi ma ogeyd sodohdaa markay qaadanaysa caanaha? May bay tiri anigu ma ogeyn, qol baan iska galay, laakiin aniga guul waxa ii ah in habaar qabihii laygu khasbay oo halkaa ku dhintay. Xasbiya Allahu wa nicmal wakiil. Halka ayaa waxa lagu xukumay in ay inta nolosheeda ka dhiman jeel ku jirto, iyadoo maxkamaduhu marba mar isbedelayeen. Qaar lagu xukumay dilal, laakiin waxaa lagu xukumay inta nolosheeda ka dhiman in ay jeel iskaga jirto. Halka ayay qisadeeni maanta ku dhammaatay. Waan rajaynayaa inaad ka hesheen. Channelkana subscribe saara, gambaleelka furta, fiidiyowyadana like saara. Waad mahadsantihiin.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.